بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد أنا في صواحلي ما أقانه لكن آيات كل آخرين وحن قرتين لقوا الرمي بر الوالدين وحن اسكت يدونا أنتي ونصوص أخرية إن كتجو فلنا إن إنكو بيرين كراينا تلباو أنا جهرين مركن نكوررنه لبدا والدي وسمفلكودا أفر سورة القرآن إلهي وحكت المامة وبالوالدين إحسانا في سورة البقرة النساء أنعام إسراء في سورة الأحقافنا وبوالديه إحسانا شنطة آيادود إلهي إحسان بكت المامة الله سمعيه في سورة العنكبوتنا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا أي إلهي تلمامية في سورة لقمان إلهي وحت المامية أيضا مطلقة ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن مركان أنت اسكو درت ضبضا آيادات إحسان يا حسن الشيقية وإن والدك الله سمفله إلهي سبحانه وتعالى آيات بدن وكلا قرآن أبوك قور رمي والدك يا سيد الله سمفليه وحكى له قرآن كوينات المامية وسمفلك والدك إنانو كحدنين دين توهيسته والدك إنو مسلم يهي إنو قال يهي إنو فاسق يهي إنو فاجر يمدنا بكم حنا هدو والد بنقضة والصفة سلي يهي إنو والد يهي وحلي يهي إن الله سمفله سادرادت بإلهي وحكت المامية سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة بإلهي المامية وصاحبهما في الدنيا معروفة لبدا والد إلهي وحي حقي ساهديكو إلى هذان كتك كأقبال بالليل أما وحكى صهره وصاحبهما في الدنيا معروفة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين لبدا يدودان أخرية لبدا بإلهي وحكوت المام يا والدكو إنو السمفلي هي أدون كان لوغو السمفلي دين توهيستا وحي دون تبها النقطة سيدا أوجد waxaad dareemaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mansilada waalidka sida uu xoojiyey ama se uga warramayo bale marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ambiyada qur-aanka ku ammaanaya nebiye ka mida ilaahay wuxuu ku ammaanay inay waalidkood qaar u samafalo ahaayeen saa daraaddeed baa ilaahay nebi yaxya wuxuu ku tilmaamayaa wabarran biwaalidayhi walam yakun jabbaaran casiya inuu ahaa mid u samafala labadiisa waalid mana ahayn baa ilaahay leeyahay jabbaaran casiya mid jabaruut yacni labada aayadooda dambe aan tilmaami doono aayaddan iyo aayadda dambeba ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa waalidka oo loo sabafali waayaa inay jabbaarnimo tahay saa daraaddeed baa ilaahay nebi ciisena wuxuu ku tilmaamayaa wabarran biwaalidatii walam yajcalnii jabbaaran shaqiya waalidka markaas haddaad samafalkiisa ka tagto وتجبر يتكبر أي إلهي سبحانه وتعالى كنت المامية شقي يعسنا ولا كنت المامية إنه قف عاصي يهي أو قف شقي يهي أو صفات كاحن حن لا يهي بإلهي كصفين يا أم بيدنا لجاء فينا ينعني تعالهين وحقوق فلان طاعة والد لا طاعية سبب فالكود هالكي جارسي سنتهي قصة إلهي نوجا ورما يا نبي إبراهيم يا نبي إسماعيل إلهي قرآن كوحو كنت المامية نبي إبراهيم إن إلهي وحيودي إنه ويل كيسي إسماعيل قالوا يضل يتحاميو دبتنا إن كيسي مو أصر ومنين من اللقون شبارين وحبك لا تونكم السمينة ورعد بو شيء يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ويل كيجيو وما ويل يرهيجيو وحا الريال يقول تصير الريال الأنبياء وحي وحا الله يفري inaan ku gowraco bal maxay adiga kula tahay buu weydiinaya waxa la weydiinaya nabi ismaaciil waxa weeyaan waa lagu gowracayaa ayay kula muuqataa isna wuxuu leeyahay abati fa'al ma tu'mar satajiduni in shaa Allah min as-sabirin aba wixii alla ku farayeel waxaad heli doontaa
haddii rabbi xukumo anigoo ka mida inta sabirta wuxuu ku ateecayaa aabbihii inuu gowraco bireeyo wax ka sokeeya markaa maxaad u malaynaysa wax ka sokeeya nolosha halkay gaadhsiisantahay haddii ilaahay uu rasuulkan ku tilmaamayo inuu aabbihii ku ateecay inuu gowraca aqbalo idan labada waalid samafalkoodu waa min addiin waxaanay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay qur-aanka inugu faray nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisuna in badan ay tilmaamayso iyadoo loo samafali waayana wuxuu nebigu ku tilmaamaya inuu malcuun yahay malcuun inuu yahay labada waalid ninka caaq ku noqda ama axaadiista waxay ku tilmaamaysaa kabaa'irta waaweyn inay ka tirsan tahay cuquuqul waalideynku sidaa awgood waxaan waxoogaa ka tilmaami doonaa waxoogaa axaadiisa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday oo uu tilmaamaya mansilada ay gaadhsiisan yihiin saxaabigii la odhan jiray xaarisata bnu nucmaan xadiidka ibnu xibbaan warinayo sheekh alalbaanina saxiixa ku tilmaamayo wuxuu nebigu leeyahy baynamaa ana aduuru fi ljanna samictu sawta qaari faqultu man haada faqaaluu xaarisata bnu nucmaanin kadalika albir anigoo jannada maraya buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ayaan sawt qur'aan nin akhrinaya maqlay dabeetana waa kuma baan idha waa xaarisata bnu nucmaan baa la yidhi yacni nebi maxamed wuxuu tilmaamayaa wiilkani samafalku kadalika albiri buu nebigu ku tilmaamayay waxaa kuugu filan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamay taabiciintaba ninka ugu fadli badani inuu yahay ina khayru taabiciin rajulun yuqaalu lahu uways walahu waalidat wakana bihi bayaad famuruuhu falyastagfir lakum taabiciin waxaa u khayr badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin uways la yidhaahdo ninkaa wuxuu nebigu ku sifeeyey hooyuu lahaa waana u samafali jiray baras buu qabay cudurkan caddeeya dadka diirka ka roga ilaahay buu baryay subxaanahu wa tacaala dabeetana ilaahay waa ka fayday waxaa kaloo nebigu tilmaamayaa saxaabadiisii buu ku leeyahy haddaa aragtaan dembi dhaaf ilaahay noo weydi ku dhaha cumar binu lkhadaab baa wuxuu raadiyey xadiidka saxiixu muslim ku yaalla markay reer muraad ama qabiil yaman u dhashay markay yimaadeen ayuu ka dhex raadiyaa madadkii iman jiray ciidamadii ku socday frontka dagaalada ee jihaadka ahaa ayuu weydiin jiray war maydinku jiraa ninkaasi akhiiran waa loo tilmaamay xadiidka lafdigiisu waa dheer iyo isagoo kooban baynu tilmaamaynaa waa loo tilmaamay wuu helay ninkii war barastii ninka ka bogsaday barta yare cadi ku hadhay adiga maye haa wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii baan maqlo warkaa sheegaya ii ducee markaasuu u duceeyey kadib buu cumar waa amiiru lmu'miniin wuxuu yidhi xaggaad ku socotaa aan waaliga muslimiinta ee hore gofarnarka muslimka ee meesha aad ku socoto xukumaya aan waraaq kuugu qoree waxaan ka jeclahay buu yidhi waxaad sheegayso fii khabraa'i innaas inaan ka tirsanaado dadka inta aan la dareemin inta aan la buunbuunin qofka muslimka ahi wuxuu jecel yahay alle agtiisa inuu ku weynaado laakiin dadka weynidoodu qiimo badan ma leh saa awgeed buu taabiciga kani wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan layba ogaanina aan sidaa ku tago beri dambe ayuu nin ka soo xajay yaman ayuu cumar qisadii u sheegay uu yidhi ninkaa maaragtay haa buu yidhi waxaan ka imi buu yidhi isagoo guri yaroo buula ku jira oo maryo dildillaacsan sita oo laa yaabah bihi nnaas dadku aanay waxba weydiinin markaasuu yidhi war ninka aad arkayso nebi maxamed baa yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaad aragtaan ka ducaysta oo ilaahay dembi dhaaf noo weydii ku dheh ninkii xajkii markuu ka noqday buu uways u tegey markaasuu yidhi waysow ii ducee ways baa yidhi adigaaba iminka xajka ka yimo camal saalixa soo sameeyey safarna ka soo galay inoo ducee markaasuu yidhi may adigu ducee dhowr jeer markuu ku celiyey ayuu ways markii dambe yidhi war ma cumar baad aragta markaasuu yidhi haa dabeetana waa u duceeyey cidna hay sheegin buu yidhi oo iskaga tegey burduu siiyey maro la xidha buu siiyey magaaladu waxay isweydiinaysay warkii u weys ahaa maruu helay maanta talow yaa siiyey yacni ninkani faqri intuu ka qabo iyo xaalkiisu halkuu joogo iyo nebi maxamed halkuu gaadhsiinaya calayhi salaatu wasalaam waa laba kala fog dadka agtoodana waa ninkaa marada lagu jamanaya laleeyahay maanta maruu helaye xagguu marada ka keenay la isweydiinayo sidaa awgeed ayuha alxiba
hadduu nebigu ku tilmaamayba ninkii u fiicnaa ama u khayr badnaa taabiciin sifada koowaad ee laynaga siiyey waxa weeyaan inuu waalidkii u samafali jiray. waxaan si kooban u dul mari doonaa axaadiid nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaato tilmaamaya waxyaabaha tusaale layna siinaya waxyaabaha loogu samafalo labada waalid. labada waalid qur-aanku wuxuu tilmaamay in hadalka loo dabciyo, in loo dhimriyo, in loo samafalo, wixii wanaag oo dhan in loo qabto. waxay yidhaahdaan sida uu soo warinaya imaam albukhaari fi ladab almufrad, sheekh alalbanina saxiixa ku tilmaamayo, abaa hurayra wuxuu arkay laba nin oo isdaba socda, markaasuu midbu wuxuu ku yidhi maa haadaa mink, war ninkani muxuu kuu yahay? markaasuu yidhi abi, waa aabbahay. waa laba nin oo wada socdoo isdhalay ayuu abu hurayra arkay. mid buu yidhi kani muxuu kuu yahay? waa wiilkii. markaasuu yidhi waa aabbahay. abu hurayra wuxuu ku yidhi laa tusamihi bismih walaa tamshi amaamah walaa tajlis qablah. aabbaha weligaa magaciisa ha ugu yeedhin buu yidhi, hebelow ha ku odhanin, hortiina ha soconin, oo haddaa israacdaan ha ka horrayninoo aabbaha ayuu ku dabagelin. haddaa fadhiisanaysaanna aabbaha hortii ha fadhiisanin buu abu hurayra ku leeyahy. yacni wuxuu barayaa adabka qofka muslimkaa iyo waalidka sida uula dhaqmayo. waxaynu naqaanaa samafalkooda nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa a wada maqashaan inta badan riyaad saalixiinka ku qoran, saddexdii nin ee godka galay ee roobka ka jirsada ee buurta dhagaxu ku soo dulundulcooday ee dabeetana uu daboolay waxay ku ducaysteen. midba ducuu akhriyey. midbaa ducadiisu waxay ahayd ilaahu waad og tahay inaan waalidkay u samafali jiray oo xoolaha markaan soo xareeyo carruurta iyo cidna inaanan waxba siin jirin, inaan iyaga ugu horraysiiyo mooyaane labadiisii waalidee waaweyn. kadib ayaa maalin foofkii xooluhu la dheeraaday, goor dambe oo habeena buu soo hoyday, waalidkiioo gam'ay buu caanihii soo lusay. deetana wuxuu is yidhi waalidka ha toosinin, caadadaadiina ha baajinin oo caanaha cidna ha ka horsiinin. carruurtiisiiyo halkan gaajaysan ayuu labadiisii waalid caana la dul fadhiistay. dadka waaweyn waxaa lagu yaqaanaa inaanay hurdada aada uga boganin, oo qofku markuu da' gaadho inta badan waa yara seexdaa, waa soo toosa. ilaahay ninkan wuu itixaamo, labadii waalidna indhaaba waa kala qaadi waayeen, waa seexdeen. waagaa ku bariyey. ilaah waad ogtay buu leeyay intaan caana la dul fadhiistay in waagu ii bariyey, sidaan caanaha ula dul fadhiyay anigoo aan cid kala siinin, ee ilaahu dhagaxa naga fayd buu leeyay. yacni waa duco uu ilaahay ku baryayo inuu waalid u samafalay, dabeetana ilaahay subxaana wa tacaala ka fayday. waxaa kaaga filan inaynu soo aroorino xadiidka ibnu maaja iyo keyrkiiba warinayaan ee jaabir ibnu cabdillaahi uu leeyay nin baa nebiga u yimi oo wuxuu yidhi ina lii maalan wa walada wa ina abii yuriidu an yajtaaxa maali. carruur iyo xoolaba waan leeyahay, aabbana inuu xoolahayga qaataa buu doonayaa. nebigu wuxuu ugu jawaabay anta wamaaluka liabiik, adiga iyo xoolahaba aabbahaba isku leh. adigu mar haddii aabbaha ku leeyahay waxaad haysatana isagaa leh, cabashadaa ha la imanin. cabdillaahi ibnu cumar ibnu alkhataab baa waxaa u yimi nin la yidhaahdo taysalata ibnu mayaas. taysala waa nin khawaarijtii ka mid ah. khawaarijtuna afcaal badanoo xunxun bay sameeyeen, deetana wuu toobad keenay. markaasuu cabdillaahi ibnu cumar wuxuu ku leeyahay war wax badan baa iga dhacoo dhib ah, maxaan sameeyaa? intii aan khaarijiga ahaa, xaruuriga ahaa, wax badan baan sameeyey, waa ka soo toobad keenaye maxaan sameeyaa? ibnu cumar wuxuu ugu jawaabay atafraqu nnaar wa tuxibu an tadkhula aljanna. naarta ma ka baqaysaa buu yidhi, mase rabtaa inaad janno gasho? dee ninkani wuxuu ugu yimi waa intaa. haa buu yidhi, ii wallah. qaala axayun waalidaak, war labadaadii waalid ma nool yihin buu ku yidhi. qultu cindii ummi, hooyaa joogta buu yidhi, aabba ma noole eh. qaala fawallaahi low alanta laha alkalaama waacamtaha aطacaama latadkhulanna aljannata ma jtanabta alkabaa'ir. wuxuu ku yidhi ilaahay baa ku dhaartay haddaad hadalka u dabciso, quudiso, waxay cunto siiso, jannaad geli, haddaad dunuubta waaweyn iskaga tagta buu leeyay. yacni ibnu cumar ninkaa khaarijnimada ka soo noqday le waa toobad keenay, acmaasha wanaagga uu tilmaamayo inuu janno ku geli karo wuxuu u tilmaamaya inay tahay waalidka inuu samafalo. waalidka samafalkooda waxaad ka garan kartaa
inay nusuustu in badan tilmaamaysa in la ateeco waa inagii soo marray qisadii nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil dhex martay nebiguna calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi bnu cumar oo gabadh guursaday oo jecel baa u yimi deetana wuxuu yidhi aabbahay ayaa gabadhaydii xaaskayga necebo wuxuu leeyahay fur kollay in waa wax diin ku saabsan dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu cabdillaahi bnu cumar u yeedhay buu ku yidhi yaa cabdalla bnu cumar طلق امرأتك عبد الله بن عمر وقبض فربو كيري نبي عليه الصلاة والسلام وهو طيع أبها مركلة نبأ يما أبي الدرداء صحابي اللي ورنشري مركز سيدي ريربان لاي هو يدينا مربطه وحي فرس أين انفره أبو الدرداء وحليه أنا وحن مغلبي للنبي عليه الصلاة والسلام وله الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فحافظ على الباب أو ضيع أنا وحن مغلى نبي قال أب والدك وأوسط أبواب الجنة الباب ده الجنة كوا وفي عنا مكونه حيوية هدات ربطه ده إلى أشياء الباب كا هدات ربطنا ده أدوس كده يعدي كشرتابو لي محل لو قصة مفلية سيبر دلنت الضمب هذا يقاط كوعنا ما وحن بوسة ما يا ما كم بوسة ما يا وسعر الرئيس أماها الله سما فلية hadday xaqu sheegitayna waa loo sheegayaa haddaanu adiga kaa qaadanina cid uu ka qaadanayo aad garanaysa aad u tilmaami doontaa ku dadaal waalidkaas aanu naar u galeen hadduu jid naareed hayo kadu waxa kugu filan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka markuu kaga warramayo nebi ibraahim iyo aabbihii siduu la hadlayay wadkur fi lkitaabi ibraahiima innahu kaana sidiiqa nabiya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سيدو آبه أبرييه وناقا وقت الماما يقصدا qur-aanka ku soo aroortay baa si cad inoogu tilmaamaysa aan tilmaamno aba hurayre iyo qisadiisii saxiix ku soo aroortay aba hurayra wuxuu leeyahay hooyaday baan u yeedhi jiray oo diinta ugu yeedhi jiray gaalad bay ahayd markaan diinta ugu yeedhanayana nebigay wax ka sheegi jirtay isagu wuxuu leeyahay kaalay oo islaamo diin buu ugu yeedhayaa iyana waxay ugu jawaabaysaa canaadnimo waxay ka qabto marka kan inay nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka sheegto anoo ooyayaan haddana nebiga u tagaa buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhaahdaa ilaahay rasuulkiisiiyo hooyaday baan diinta ugu yeedhay dabeetana wax xun oo adiga ku saabsan bay imaqashiisay ilaahay ii bari buu abu hurayra leeyahay nebi maxamed in ilaahay hooyaday hanuuniyo ilaahay ii weydii nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu gacmaha kor taagoo rabbi baryey buu wuxuu leeyahay allaahumma hdi umma abi hurayra ilaahayow hanuuni abi hurayra hooyadii anigoo ducadii nebiga ku faraxsan buu yidhi baan dib u noqday markaan gurigii ku dhowey albaabkii ayay qajaftayda maqashay hooye sanqadhii bay maqashay guryuhuna albaab ma lahayne waa daah yaroo la iska duwo markaasay ku tidhi waar halkaaga joog markaasaan maqlay buu yidhi biyaha sanqadhoodii biyay isku shubaysaa ilaahay ducadii nebi maxamed buu aqbalay oo way islaamtay oo dabeetana gaalnimadii bay ka maydhanaysaa abu hurayra intuu soo socday bay islaamtay markaasaan ay tidhi buu yidhi halkaaga joog kadib markii ay qubaysatay ay tidhi soo gal buu yidhi waxay igu tidhi yaa abaa hurayra ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan cabduhu warasuuluh anigoo farxad haddana ooyayaan ku noqday buu yidhi nebiga markii hore isagoo ooyayo wixii nebiga laga sheegay iyo hooyadii gaalnimada haysatay ka ooyayuu yimi iminkana anoo ooyayaan nebiga ku noqday buu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaan idhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bushaarayso rabbi dacwadaadii waa aqbalay nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ilaahay ammaanay oo khayr yidhi buu ayaan haddana abu hurayra wuxuu leeyahy waxaan ku idhi ilaahay rasuulkiisiiyo waxaad haddana ii baridaa anigiiyo hooyadayba in ilaahay dadkana jeclaysiiyo addoommaha alle in ilaahayna jeclaysiiyo nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kaluu abu hurayre u duceeyey xadiidka saxiixu muslim buu ku yaalaayay allaahumma xabib cubaydaka haada yacni abu hurayra وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين نبي وحوق دعي إلى هو أدون كاغا كان أدون يرهاغا كان أبا هريرة
isaga iyo hooyadiiba ilaahu ummaddana jeclay si iyaguna ay jeclaadaan abaa hurayre waa idinkaa arkay oo xadiidka abaa hurayre laga waayo dadku maba rumaysna in badani idan waa jacayl loo qabo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ugu duceeyey waxaan leenahay ilaahay u bari diin ugu yeedh raalli ahaanshahooda raadi oo wax ay ka damqadaan haba yaraatee culammadu waxay dhahdaan cuquuqul waalideynka markay tacriifinayaan waa wax uu kahado waalidkaayo aad sheegta bay idhaahdaan ayan kaan saa awgeed baa nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam rida arab fii rida alwaalid wa sakhatu rabbi fii sakhati alwaalid ilaahay raalli ahaanshihiisii wuxuu ku jiraa waalidka raalli ahaanshihiisa cadhada allena waxay ku jirtaa cadhada waalidka baa la yidhi waalidka haddaad ka cadhaysiiso waxay u dhowday inaad rabbigaa ka cadhaysiisay sidaa awgeed waxau nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inaad ku dadaasho u fiirso weligaaba cibaado badnow saxiixu muslimka qisadii kale ku taalee jurayj aan kuu tilmaamo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay saddexdii ilmood ee dharabta ku hadlay waxa uu sheegay nin jurayj la yidhaahdaa inuu jiray oo caabid ah oo meel u baxay keligii meeluu ku cibaadaysto oo guri intuu dhistay dabaqa yaro sare gala oo halkaa keligii ku cibaadaysta hooyadii baa soo booqato u timi dabeetana isagoo salaad xidhan bay u timiyo yaa jurayj bay tidhi ummii wa salaatii buu yidhi hooye iyo salaad dabeetana salaadduu iska wato hooye way iska noqoto maalin labaad bay timi sidii si leeg buu ugu yeedha haddana ninkani waa nin cibaado u go-ay hooye iyo salaad buu yidhi dabeetana salaaddii buu iska wata mar saddexaad bay u timi sidii oo kalaa dhacday dabeetana way habaartay ninkan caabidkii halkaa ku jira ilaahu isaga iyo dumarka xunxun istus bay tidhi waxay ku habaartay isaga iyo muumisaadka dumarka xunxuni inay sarkaan waxaa la yidhaahdaa qisada meeshan waxaa deganayd gabadh aada u qurux badan oo haddana dumarka xun ka tirsan dabeetana iyadoo jurayj la ammaanayo cibaadadiisa laga warramayo ay maqashay waxay tidhi kaa sheegaysaan bal aniga igu dhiga waxaan ku sameeyo anaa idin tusi doona dadka badh baa shayaadiina oo xumaha jecel qof aan waxba u geysan bay waxay leedahay anaa xadhigga weydaarin doonay aniga igu sima way soo baxday jurayj waa isu bandhigtay laakiin ninkani cibaado u go-ay qowsaar ama dhoobisaa u taqaaniin mid xoolo raaco meesha jooga ayay gabadhii isu dhigtay ilmay dhasha yaa dhalay baa la yidhi ilmahana waxay tidhi jurayj baa dhalay jurayj baa sawmacadiisii baa la dumiyey meeshii uu ku cibaadaysan jiray baa la yidhi tuugga xumiyo intuu hablaha u weydaartaa buu halkan wadaad iska dhigayaa waxaa dhacday markaa wuxuu yidhi war bal ilmaha u yeedha ilmihii baa la keenay ilmihii buu gujiyey laba ragcadood buu tukado kadib intuu ilmihii gujiyo yidhi man abuk war aabbaha waayo ilmihii yaraabaa ilaahay ka hadiyey wuxuu yidhi waa qowsaarka gala adhiga raaca waa ninka xoolaha jira qisadani laba wax bay tilmaamaysaa kow waxay tilmaamaysaa cibaadada anfaceeda waxay kaloo tilmaamaysaa weligaaba cibaado badna waa haddii odag iyo islaantu wax kaaga tagaan inaad khatar ku sugan tahay waayo islaantaasi habaarkay habaartay waa la istusay isaga iyo wixii ay ku habaartay isagana markii dambe ilaahay wuxuu ku badbaadiyey oo ku karaameeyey cibaadadiisii tirada badnayd ee uu samaynayey asalna waxaabay culammadu leeyihin faradka loogama baxo laakiin adoo sunno ku jira haddii waalidku yeedho waxaa waajib kugu ah inaad hee tidhaahdo waayo sunnuhu waa sunne waalidka inaad u jawaabtaana waa faral idan waa inaad ka baxdaabay culammadu yidhaahdaan aad u jawaabtaa waalidka waxaynu tilmaamaynaa marka waalidka habaarkiisu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya axaadiista ka asaxday saddex baryo xagga alle lama celiyo waxaa ka mid ah dacwatu lwaalid riwaayaadka qaarkoodna dacwatu lwaalidi calaa waladih ayay tilmaamayaan habaarka uu habaaro waalid ilmihiisa wuu ku dhacaya siiba hooyooyinka waxaan leeyahay afkiinu iyuu habaarka baranin inkaari kugu dhacday iyo habaar baad qabtaada iyo waxa kan habaar buu qabi uun in badanoo soomaali aan u taagla-ana islaamaha ku yidhi habaar baad qabtaa habaarkii loogu duceeyey bay qabaan idan waxa fiican qofka muslimka ah isaguna inuu wax fiican ku hadlo inaanu erayada xun carabkiisa barin
سأوجد النبي وحلي هبارك والدكو ودعاه وحلنا وحكم ده وحيابا والدك الله قصة ما فليه إن أصحابتي والدك يسجد داي عدوا الله صاحبك إن تحريرسه هذا دكتور عيد أبها ما هو يدا احترامي شرطه صاحب إلهي إن تحريرسه عبد الله بن عمر يارد يسي عبد الله بن دينار تابعي قال له رنش ريقو حرم كيمو كان غضي دحدا مرية أيان الرير بادي كصابحي دبتنا ابن عمر بعد ضمير وفشانان سي عمودي سينا وفري عبد الله بن دينار باوحولي ابن عمر وننكا كاني والرير بادي ونوح يربي كو قنعانه هذا عمود سي ما حد ضميرك وقدرت بعد ضميرك هاجا اسكف وشناتي وحكولي ننكا كان أبيه أهل ود عمر بوها آبهي صاحبكي بوها marka aabahay dadku jeclaaya saaxiibka la ahaa mar haduu wiil kan dhalay saas baan ku xidhiidhinaya abu tilmaamaya silatul walid ahlu wud abi nabiga yiri inna abar albir sama waxa ugu fiican xidhiidhka uu waalidku xidhiidhiyo dadkii waalidkii jeclaayeen waalidka ama aabaha noqdo ama hooyada ha noqdo intay xidhiidhin jireen inaad xidhiidhiso qaababka loogu samafalo waxa kamid ah inaad ilaahay baryadiisa u badisid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay camalka bini aadamku inuu go'o ilaa iyo saddex mooyaane saddexdaana waxaa ka mid ahaa waladin saalixin yadcu lahu wiil saalixa oo u soo duceeya bale nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa jannada waalid ku jira ayaa darajadii uu lahaa kor looga qaadaa markaasuu yidhaahdaa annaa lihaada إلهي وأنت ما شغل سنة حقي كتمي فيقال باستغفار ولدك لك ودم بدافكو إلمها هذا الشيء إلهي يكوسه ويديني سبحانه وتعالى آبها هدو نولي هو يدا هدي نولي هدي دنتين با إلهي وبري دي نوليهين يا هدي دنتين با إلهي وبري وحياد عبادة وصمين كرترة وصمين شرع وبنيي نبي عليه الصلاة والسلام وحط المامي gabadh baa waxay tidhi ilaahay rasuulkiisa hooyaday jaariyad baan siiyey dabeetana way dhimatay jaariyaddii waa tan oday igu soo noqotay maxaan sameeyaa waxay ka cabsatay in sadaqada laga aqbali waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi adiguna ajarkaagii waad heshay dhaxalkana ilaahay